muuqaalkeen hore waxaan kaga hadalnay dhalashada Khalid bin Waliid qaabkuu soo barbaaray iyo soo kala dagaalkii Uhud. Markii Uhud laga soo laabtay xaaladda labada dhinac oo yara kala degtay. Haddana waxa bilowday dagaalkii Axzaab lagu magacaabay inkastoo gacanta la iskula tagin laakiin ay muslimiintu ku guuleysteen khidadii caanka ahayd Salmaan al-Farisi uu keenay ee ahayd in godad waaweyn la qodo farduu ka boodi karin. isagoo Maka ka jooga ayuu timid warqad walaalkii Waliid ibn Waliid u soo diray oo muslim ahaa uuna sheegay Nabi Maxamed weydiiyey oo dhahay Khalid mee aniguna waxaan ugu jawaabay uu dhahay Waliid Ilaahay ayaa keeni doona. markaas Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam nagu yiri aqliga Khalid oo kale ma aha mid islaamka ka jaahil noqdo. Waliid ibn Waliid markaa wuxuu ku dhahay Khalid walaalkay oo khayr badan ayaa ku dhaafay ee soo dhaqso. waana wada naqaana qisadii caanka ahayd soo islaamadii Khalid ibn Waliid iyo Umar ibn al-Aas oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ku farxay oo dhahay hadda Maka idin ku soo toortay dhalinyaradeedii uu ka waday Quraysh waxba uma hadhin. soo islaamadii Khalid ibn Waliid kadib muslimiintu wax dagaalamay gelin muddo 4 bilood. 4 bilood kadib waxa dhacay dagaalkii Mu'ta lagu magacaabay caanka ahaa ee muslimiintu la galaan dowladda Ruum ama markii ugu horeysay dowladda Ruum iyo muslimiintu isu wajahanayeen. dagaalku wuxuu ku bilowday in Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu rasuul u diray dhankaas iyo carabtii hoostagi jirtay boqortooyada Ruum ama Byzantine soo taqaan. carabtaas lagu magacaabi jiray qasaawisada waxaana madax u ahaa Shurahbil nin lagu magacaabi jiray. rasuulka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam diray markuu dhankaas iyo Shurahbil gaaray Shurahbil korku ka jiray. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu soo gaaray rasuulku dirsaday dhankaas qasaawisadii carabadu dirsaday la dilay oo caarooday. waxaan u go'aansaday inuu edbiyo qasaawisada carabta. xaggaas ayaanu ka dhici doona dagaalkan Mu'ta lagu magacaabo ee muslimiinta iyo Byzantine isu wajihi doonaan. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markaa wuxuu diyaariyay 3,000 oo ciidan ah waxaanu 3 hogaamiye u magacaabay oo Zayd bin Haris buu ka koobaad ka dhigay hadduu geeriyoodo Jacfar bin Abi Talib buu ka dhigay ka labaad hadduu geeriyoodo Abdullah bin Rawaha ayuu hogaamiye saddexaad ka dhigay. saddexdaas ayaa dagaalka hogaaminayay Ilaahay ka raali noqday dhammaantood. Khalid bin Waliid ciidanku ku jiray laakiin markan askari iska caadi ayuu ahaa. ciidankii 3,000 ahaa ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam diyaariyay markay Madiina ka soo baxeen qasaawisadii carbeed way ogaadeen in ciidanka muslimiintu soo dhaqaaqeen waxaana boqortooyadii Ruum markaas u dirsadeen taakulo. inkastoo aanay qasaawisada carbeed ka warqabin tirada saxda ah ciidamada muslimiinta. Shurahbil markaa wuxuu diyaariyay 100,000 oo nin waxaanu taakulo ka dalbaday boqortooyada Ruum iyaguna soo kala waxay soo direen 100,000 oo kale saasaana ku noqday 200,000. qaabkan taariikheennada qaar ayaa qaba qaarkoodna waxay sheegaan inuu ciidanku 100,000 kaliya ahaa qaarna waxay sheegaan 15,000 ilaa 10,000 meelahaas u ahaa. tirada saxdaana lama hubo laakiin waxa awood badan mar walba tan tirada 100,000. المهم ciidankaas waxay ahaayeen qaar aad iyo aad uga fara badan muslimiinta saarka doono. muslimiinta tiradooduna waxay gaadhisay 3,000 ka ugu fara badiyana 4,000 buu gaadhsiinayay. waa dareemi karnaa xataa qiyaasaha u dhexeeya labada ciidan. markii labada ciidan soo hor istaageen Zayd ibn Harith ayaa hore u soo baxay isagoo hogaaminaya dhexbartamaha muslimiinta. ciidankii muslimiintu markay arkeen farabadnida Ruum xoogaa cabsi ayaa gashay qaarkood. markaas saxaabigii Thabit ibn Arqam intuu qayliyay ama dhawaaqay u sheegay in aanu dagaalku weligii tira ahayn. wuxuuna xasuusiyay dagaalkii Badr sida muslimiinta tiradoodu u yareed Qurayshna aad u fara badnaayeen oo haddana Ilaahay uu qoray guusha. maalinkii koowaad dagaalka Zayd ibn Harith wuxuu qaaday weerar gaadmo ah oo ku kalahay ciidamadii Byzantine khasaare aad u fara badan oo geystay. ciidankii Byzantine wuxuu ku khasbay inay dib u gurtaan. maalinkii labaadna isla sidii oo kale uu ku dhamaaday muslimiintu weerar qaaday iyo khasaare labada dhinac soo gaadhay. maalinkii saddexaad laakiin subaxnimadii waxa weerar soo qaaday Byzantine ama Romanski waxaana qorsheeyeen dilka Zayd ibn Harith si muslimiintu u kala daadsamaan. Zayd ibn Harith muddo si geesinimo leh ayuu dagaalamay laakiin ciidankii Byzantine aad u fara badnaa ayaa isku hareereeyay ugu dambeyntiina uu shahiiday. calankii muslimiintuna dhulka ayuu ku dhacay. dhanka Madiina Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sheegay asxaabtiisa in Zayd ibn Harith shahiiday waana mucjiso ka mid ah mucjisooyinkiisa waxaana dagaalka uu la socodsiinayay asxaabtiisa sidii qof dagaalka dhex joogo kale. Jacfar ayaa haddana calankii muslimiinta qaaday isagoo markii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam fulinaya haddii Zayd dinto in Jacfar hogaamiye ciidanka waxaanu habeeyay ciidankiisa oo si geesinimo leh ayuu dagaalamay laakiin haddana ciidankii Byzantine aad u tiro badnaa awgeed way isku hareereeyeen. Jacfarna labada gacmood ay ka jireen laabtana seef ay ka geliyeen xaggaasaana ku shahiiday. Ilaahay ka raali noqday. calankii muslimiintana mar kale ayuu dhulka ku dhacay haddana.
ciidankii muslimiintu markay arkeen Zayd ibn Xaarith iyo Jacfar bayna geeriyoodeen aad buu niyad jabay. Cabdullaahi ibn Rawaaxa ayaa gabay niyadiisa tiriyey oo muslimiinta niyadda ugu dhisay, waxaanu qaaday calankii maadaama uu ahaa hogaamiye saddexaad muslimiinta. laakiin sidii hore oo kale maadaama Byzantiintu tiro badan way isku hareerayeen, Cabdullaahi ibn Rawaaxa soo kale xaggaas ayuu ku sheegay isaguna calankii muslimiintuna mar kale ayuu dhulka ku dhacay. saddexdii saxaabiyeed Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu talagalay in dagaalkan hogaamiyaan midkood hadduu dhinto uu ka kala qaado, saddexdoodiba way shahiideen. waxaana bilaabantay in muslimiintu kala yaacaan, xaalad fowdaana galaan, qaarkoodna dagaalka iskaga yaacaanba. laakiin saxaabigii Thaabit ibn Arqam lagu magacaabay ayaa calankii dhulka yeelay muslimiinta qaaday, waanu dhawaaqay, muslimiintu iskugu yeedhay si ay u soo hoos istaagaan calankiisa. oo muslimiintu haddana mar kale dib u mudoobaan. raggii soo yaacay markaas Thaabit ibn Arqam ku soo yaacay calanka soo hoos istaagay waxaa ka mid ahaa Khalid ibn Walid. Thaabit ibn Arqam markuu arkay Khalid calanka ayuu dhiibay, waxaanu ku dhahay hogaamiyada ciidanka. laakiin Khalid uu diiday isagoo leh hadaa islaamnimada iga soo reeyay da ahaana iga weyn oo iga mudan inaad ciidanka hogaamiso ee hogaami. laakiin Thaabit wuxuu ugu jawaabay calankaba adigan kuu soo qaaday ee hogaami ciidanka. ugu dambeyntii Khalid waafaqa waanu hogaamiyaa ciidanka. Khalid wuxuu hogaanka qabtay muslimiinta ciidankiisii oo kala daadsan, waxaanu ku dhawaaqeen ciidanka muslimiintu dhammaantood soo urursan isagoo soo garab istaagaan si ay u midoobaan mar weerar u qaadaan. ciidanka muslimiintu markay arkeen Khalid ibn Walid oo calanka muslimiinta wada si geesinimada u dagaalamayo, dhammaantood way soo wada garab istaageen. muslimiintina mar kale ayay dib isku urursadeen. Khalid markii muslimiintu sidaas isku urursadeen weerar gaadmaa buu qaaday. Byzantiintina waa la yaabeen, ciidankan saddexdii hogaamiye laga dilay maanta dhan calankooda dhulka ku dhacay ee haddana si fudud isku urursaday weerarka ku soo qaaday. ciidankii Byzantiintu markay arkeen muslimiinta dhiiranaantooda dib ay iskaga baxeen, muslimiintina soo kale iska soo noqdeen. habeennimadii Khalid ibn Walid uu fikiray waxaanu raadiyay khidad uu Madiina si nabad ugu laaban karo, maadaama aanu dagaalkani dheelitirnayn oo wax taakulahna muslimiintu soo socon. 3,000 kaliya ku dagaalan, ciidanka faraha badan dhex istaag, arrin khatar ay ku tahay muslimiinta. markaa Khalid ibn Walid wuxuu ku fikiray habeenkii qaabku 3,000 muslimiinta uga badbaadin lahaa kumanaankan reer Roma. soo kale wuxuu ku fikiray qaabku dib u gurasho u samayn lahaa isagoo ciidankan faraha badan aanay soo dabagelin, sababtoo ah ciidankii dib u gurasho aan farsamaysnayn sameeya badanka khasaarada fara badan ay soo gaadha. Khalid ibn Walid wuxuu dejiyay khidad aad u cajiib ah habeenkaas, waxaanu kala bedelay ciidankii labada dhinac ka dagaalamayay, dharkiina uu kala bedelay. qabiiro muslimiinta ciidankoodii ka midana wuxuu diray meel yara duruusan, waxaanu u sheegay subaxnimada markuu dagaalku bilowday imaadaan iyagoo boor badan kicinaya si ay Roman isku moodaan in taakulaada fara badan muslimiinta soo gaadhay. khidad runtii aad u cajiib ahayd. subaxnimadii markii labada ciidan soo istaagay ciidankii Byzantiintu waxay arkeen wajiyaal cusub
iyo dhar cusub, waxaana dheen xalay ay muslimiinta taakulo soo gaadhay. iyagoo yaaban ayaa haddana waxaa arkeen ciidan fara badan oo muslimiinta dhabarkooda soo socdo taakulo kale soo socota. markaasi aad u niyad jaban oo dhahan 3,000 ayaa muddo 6 cisho la rafan inaan kari lahay. muslimiintu taakulo soo gaadhana khadadii Khaalidna way guuleysatay. wax xag dambe soo yaacay ma ahayn ciidan taakulo soo gaaray, waa qayb yar oo muslimiinta ka mid ah oo bood badan u kicinaysa. Khaalid markuu arkay cabsida ciidanka Byzantine soo wajahday wuxuu qaaday weerar, waxaana dhacay maalinka dagaal aad u culus. Khaalidna waxa gacantiisa ku jabay 9 seefood. heeru markuu ka sheekeynay maalinkaas uu dhaho waxa gacanteeda ku jabtay 9 seefood maalinkii dagaalkii Mu'ta. dagaalkii uu culusaaday muslimiintina Byzantine aad bay u riixeen ilaa heer ay gaadheen taandhadii xagga dambe uga dhisnayd hogaamiye ciidanka Byzantine. muslimiintu wax cadaadiskoodii wada ayaa Khaalid hal mar amar soo rogay in muslimiintu dib u gurtaan. ciidankii muslimiintu dib ayuu baxeen waan iska tageenba. Byzantine way yaabaan ciidankii dhammaydin cadaadinayay ee dib iskaga noqday maxay ahaayeen. hogaamiye Byzantine markaa wuxuu mooday inay khiyaamayaan oo rabaan in la soo dabagalo. markaa amaraha wuxuu soo rognaa in la dabagalo muslimiinta sababtoo waa khiyaamo ama waa khiyaamo ay rabaan inay diin dhigaan. laakiin khadadii Khaalid ibn Waliid way guuleysatay. ciidankii muslimiintana iyagoo khasaare fara badan soo gaarin ayuu ka soo saaray meesha oo aanay xataa Byzantine ku dhicin inay soo dabagalaan. dhimashada dagaalkan labada dhinac waa la isku khilaafaa. Rum 3,000 ayaa ka dhimatay ayaa la sheegaa, muslimiintana 100 ayaa ka shahiiday, laakiin qaarkood waxay ku doodaan muslimiinta aanay 100 ka shahiidin ay 12 qof kaliya ka shahiideen. dagaalkan cidna kuma guuldareysan, laakiin khidadii Khaalid ibn Waliid waxay ahayd badbaadinta 3,000 oo nafooda muslimiina. uu ka badbaadinayay dagaal aan isku dheelitirnayn oo muslimiintu aad u tareerayeen, Rumna aad u fara badnaayeen, welibana muslimiinta wax taakula ah aanay u dhoweyn una soo soconin. waxaanay ahayd khidadii kaliya dib u gurasho ee taariikhda soo marta ee aanu hal askari ku dhimanin. soo laabashada ciidankii muslimiintu iyagoo 3 kumbabeed qaba oo khasaare aad u fara badan soo gaaray Madiina ku soo laabtay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam aad ayuu u farxay. Khaalid ibn Waliid wuxuu noqday hogaamiye iftiimaya oo muslimiinta u soo baxay.